هلا magacaygu waa Layla waxaan idinka sheekayay qaybtii hore qisadayda shakigii iga helay dhanka iyo ninkayga kadib markii aan daba galay waxaan ogaaday inuu qarinayo meydad badan intaa kadib maandooriyaal ay u qabtay waana miir beelay subaxii dambe waxaan soo toosay waxaana la hadlay booliska waxaan aragnay inaanay waxba jirin oo ay maran tahay meeshu markaan la hadlay saaxiibaday aan u sheegay wixii dhacay waxa ay tidhi waxa laga yaabaa inaad riyoonaysay saaxiib waana ay qancisay waana rumaystay hadalkeedii kadib ninkaygii ayaa guriga ku soo noqday wax kastana dabiici bay haayeen waan degay sidaan moodayay riyo xun bay ahayd wixii dhacay kadib markaan seexanay si kadis ah habeen badhkii waxaan ku soo toosay si naxdin leh ninkaygii oo igu haya midi oo ileh carhadal waxaan ku yidhi maxaad samaynaysaa gacaliye kac oo carhadal haddii kale imikaan ku dili doonaaye ayaa uu idhi naxdin darteed baan kacay waxaanu igu amray inaan qolka ka soo baxo wuxuu ii soo waday xagga iyo qolkii hoose waanu soo galnay kadib xadhig ayaa uu igu xidhxidhay waxaa ii muuqatay in wixii xalay dhacay ay run ahaayeen ninkaygu waa dilaa sidaan ka shakisanaaba waxaan ku yidhi waan ku baryaya yahay dilin cidna waxba uma sheegaye xalay kumaanan dilin waayo si kadis ah ayaad iigu soo gashay agabkii aan wax ku dili lahaana diyaaray ma ahaayeen laakiin iminka wakhtigaagii waa u dhammaaday waan ka xumahay gabadh wanaagsan baad ahayd balse adigaase isku geystay iminkana waa inaan kaa takhallusaa oo aan ku dilaa waayo waxaad bilowday inaad dadka igu soo jeediso may sidaa ha samaynin waan ku baryayaa mididii ayaa uu kor u qaaday balse ka hor intaanu iga taagin waxaa ka soo jiray codka jalaska albaabka oo la qaraacay waa uu istaagay waxaanu yidhi waayo qofka xilligan noo imanaya ma booliskaad la hadlashay mar labaad si degdeg ah ayaa uu soo baxay dhanka iyo albaabka waana uu hoos istaagay albaabkii waa u furay waxay ahayd saaxiibaday waxaanay ku tidhi isagoo iska dhigay inuu dabiici yahay salaamu calaykum waxaan ahay gabadhaada saaxiibadeed waxaan u imaaday si aan u qato gaadhigayga ay furgiisa iga soo ammaanaysatay xalay iga raali how haddaan xilligan idinka jiray hurdadii si la yaab leh ayaa u eegay waxaanu ku yidhi waa maxay xilligaa dadka kusoo qaraacaysaa miyaanad xishood lahayn gabadhaydii waa ay hurudaa mana doonaya inaan toosiyo soo noqo aroorta si aad gaadhigaaga ugu doonato si raaligelin leh ayaa ay ku tidhi waan idinka raaligelinayaa balse hadalkeeda ma uu dhegaysane albaabka ayaa uu ka soo xidhay waxaanay dareentay inay wax jiraan waxay timaaday dhanka iyo albaabka markii uu ka soo xidhay daaqada hoosteeda waxaana isku dayday inay wax aragto balse nasiib xumo waxba ma ay arag oo wax kasta dabiici ayay ahaayeen balse markii ay soo jeetatay waa ay naxday markay aragtay ninkaygii oo midi ku haya kuna leh aamus carhadal waxay isku dayday inay dhaqaaqdo balse mididii ayaa u wacay waxaanu ku yidhi mar dambe waan kugu dili doonaa haddii kale iminkan ay hor soco waanu soo geliyay gurigii waxaanu u soo waday xagga iyo qolkii hoose ee aan ku xidhnaa waxaan arkay saaxiibaday oo uu soo wada ninkaygii waxaanan ku yidhi asma maxaad xaggan ku qabanaysaa waa ay aamusnayd waxaana ka muuqatay cabsi xoog ah mididii ayaa uu dhulka dhigay waxaanu la soo baxay baaskolood uu qarsanayay waxaanu yidhi baaskolodan baa idinku fiican waanu soo waday isagoo qoslaya ayaa uu idhaahday labada saaxiibe isjecel maxaa ka wanaagsan isku meel ku dhintaan waxau isku diyaariyey inuu xabad rido balse waxa ka soo jiray codka moobilkiisa ee dhacaya moobilkiisa ayaa u eegay in yar buuna naga fogaaday waanuu qabtay in yarba ayaa u hadlay waxaanu yidhi in yar kadib baan ku imanayaa ayaa isug inta uu yimaaday ayaa yidhi maad garanaysaa cid ay la hadlasay waxa uu ahaa aabbaha wuxuu igu lahaa mushkilad baa ka jirta shirkadda waxaanu ilahaa kaalay maad ogtahay markan adiga iyo saaxiibada kaa takhalluso aabbaha iyo hooyada ayaa ku xigi doonaa markaana waan ka baxsanayaa magaaladanba iminkana shirkaddan tegaya warwarina waan soo dhaqsanayaaye si dhaqsaah ayaa uu ka baxay ma rumaysan karo maaha kani bini aadam waa shaydaan jir bini aadam ku jira ama muuqaalkii bini aadamka oo kale leh maxaad xaggan ka qabanaysaa ayaan ku yidhi saaxiibaday waxay tidhi waxaan u imaaday si aan u qato gaadhigayga balse waa anigan baxar galay maxaan ka siiya ninkaagan miyaa uu waalan yahay ayaay tidhi waan kuu sheegay waxaan arkay laakiin imaanad rumaysan waa inaan si dhaqsaah uga baxno meeshan haddii kale marka uu soo noqdo ayaa uu kownagaga siin doonaaye eeg daaqada waynu ka bixin karnaa halkaa ayaa ilaa beerta dambe waxaan isku dayay inaan xadhigga furo waxaan arkay mididii uu iloobay ninkaygu waanan u soo dhowaaday anigoo isku dayayaa in aan ku furo xadhiggii daqiiqada kadib waa aan furay nasiib wanaagayga
isla markaas waxaan maqlay codkii gaadhigii ninkayga oo soo laabtay. alla waa uu soo laabtay ayaan idhi. waxay tidhi saaxiibaday, adigu orodoo baxso, haddii aad xataa iga furto kama bixi karo daaqadda miisaankayga awgii. orodoo u yeedh booliska iyo cid inaga badbaadisa shaydaankan. laakiin ma rumaysanayaan wixii dhacay ayaan ku idhi habeenkii hore wixii dhacay awgii. orodoo qaada mididii waxa ku yaalla dhiigayga markii uu dhaawacay, waa ay ku rumaysan doonaan. kadib markaan qaatay waxaan si degdeg ah aan isgu istaagay kursi, waxaanan jabiyey muraayadii. waxaan u baxay beertii dambe, xoogaygo dhan baan ku cararay xagga iyo waddada. gaadhi baan istaajiyey, waan fuulay iyadoo isoo eegaya darawalkii si la yaab leh, laakiin waa u baqay markii uu arkay mididii dhiigga lahayd. waxaan ku idhi fadlan si degdeg ah iiga xarunta booliska. waa uu degdegay daqiiqada kadibna waxaan taagnayn booliska hortooda. dhaqsi ayaan u galay, waxaan u leexday taliyihii meesha taagnaa, waxaana u ahaa isla taliyihii habeenkii hore ii imid. markuu i arkay ayaa uu idhi, ma waxaad u timaaday si aad mar kale nooga sheekayso khuraafaadkaagii? laakiin markii aan tusay mididii dhiigga lahayd waxa uu yeedhay caawiyihiisii. wax kastana ayaan u sheegay. caawiyihiisii ayaa dhinac ula dhaqaaqay, waxaanu ku idhi, waa isla gabadhii waalnayd, laga yaabaa inay ku dishay midida ninkeedii, bal aynu kaxayno si aynu usoo hubsano wixii dhacay. ilaali adiga oo ka dhaqaaqin ayaa ku idhi. si dhaqsiyaha ayaan usoo dhaqaaqnay, waxaanunu soo gaarnay gurigii. qolkii hoosaan soo galnay. si kadis ah ayay saaxiibaday madaxa ugu dhufatay ninkaygii markii ay iska furfurtay. isaguna si yaroo fudud waxa uu ku dhuftay baaskoladii, waxaynay dhacday miid. waan qayliyey, maymay saaxiibaday. waa ay naxeen booliskii, waxaanay kor u qaadeen baaskoladohoogii, waxaanay ku dhufteen ninkaygii, laakiin kuma aynay dhicin. waa uu soo jeedsaday, isaguna waxa uu ku sii daayey si ay ugu dhacdo askariga lugtiisii. waxaa bilaabmatay xabado, taliyihii iyo booliskii. ninkayguna waxa u suuro gashay inuu ka baxsado oo uu cararo. anna waan qayliyey, asmaamay ma dhici karto, tani maaha inaad dhimato. joogsi la-aan ayaan u ooyey. booliskiina waxa uu la soo baxay moobilkiisii, waxa uu yidhi, askari baa dhaawacmay, gabadh baa dhimatay, si dhaqsa usoo dira ambalaaska. waxaanuu u sheegay goobtii. isla markiiba waxa uu ka daba baxay dilaagii, waxaanuu soo yimaaday ambalaaskii. waxaa soo galay kalkaaliyaashii si ay u badbaadiyaan askarigii wax noqday. nasiib wanaag ma uu dhimane, laakiin saaxiibadii meedkeedii ayay qaadeen. isla xilligaas askartu waxay eryanayeen ninkaygii. geyn noo dhoweyd, dhowr gaadhi iyo helikobtaro ayaa la soo diray, taasoo ka caawisay in la raadiyo, laakiin meel kasta waa laga soo xidhay, meel uu baxsadaana may jirin. kayntuu kusii fogaaday ilaa uu soo gaadhay joog aad u sarreeya oo ka hooseysa badi. waa meel uu dhaqaaqana waa uu waayey. booliskii ayaa si degdeg ah ku idhi gaariyaashii taliyayaasha ayaa hareeraha ka soo hareereeyey. waxaana lagu idhi, isdhiib, meel aad martaa ma jirto, gacmahaagana kor u taag. si la yaab leh ayaa uu ninkaygii u eegay, iyadoona cidna garanayn waxa uu ku fikirayo, balse waxaa la yaab lahayd in aanay wax cabsi ahi ka muuqan. si kadis ah ayaa uu isugu tuuray baddii, daqiiqada kadibna waa uu ku dhacay. askartii horteeda iyo yeebkoodii. in meesha intaa sidaa u dheer layska tuuro, kolley waa hubaal dhimasho. in la dhimanayo hadal la-aan ayaa uu idhi. booliskii iyo dembi baadhayaashii ayaa yimi gurigii, waxaana iga weydiiyeen dhammaan wixii dhacay. sidoo kale waxaa la bilaabay in la qodo beertii dambe, waxaana la helay dhowr meydood haraagoogii. caqligaygu waa uu qaadan waayey, sidee baan ula noolaa wax shigan muddada inta leeg anigoon waxba ku arag. muddo kadib waxay ogaadeen booliskii inuu waraaqa been ah isticmaali jiray, oo aanay tani hayn magaciisa iyo shakhsiyadiisa dhabta ah, oo uu yahay dilaa khatara oo meel marba sameeya oo shakhsiyada gaara kala qaata. sababtaa ayaa uu igu sheegay inuu agoon yahay oo aanu cidna lahayn. ayaamo kooban kadib waxay booliskii ka sheegeen tv-ga inuu ninkaygii dhintay kadib markii ay kusoo booday meeshii dheerayd, inkastoo aanay ilaa hadda cidna helin oo ay ka qoosteen meydkiisii. dadka dhexdoodana caan buu ka noqday oo dadkoo dhan baa ka hadashay. dhammaan tiifiyadaa lagaga hadlay, aniguna waxaan caan ku noqday gabadhii dilaaga. tiifiyo badan baa laygu yeedhay, meelo badanna muuqaala laygala sameeyey. ilaa maantana waan baqaa inuu soo noqdo ninkaygii oo iga argoosto. inkastuu boolisku xaqiijiyey inay mustaxiil tahay inuu nool yahay kadib markuu ka booday meesha intaa leeg, balse oo keliya ay waqti u baahan tahay in lasoo helo meydkiisu. laakiin cabsidaydu igama tagto, gaar ahaan markaan soo boodo qabriga saaxiibaday ii dhimatay. markii aan badbaadisay noloshayda ama dilaaga xun, haddii uu baxsaday xataa booliska kama badbaadi maayo ciqaabkii ilaahay. waayo ciqaabkii ilaahay waa uu ku daba socdaa meel kasta oo aad tagto. waad ku mahadsantahay daawashada.